السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكسر دواء channel كقوطة برودكشن هدي أن نوع عصوبة هاي سبسكرايب يلايك شير ده هرن نقول جوكت صاحبي على شير نود هذا وما سنتين وعرفنا ما أنتنا كهذا النوع وحيد نحمر مريكان كيو channel محمد فارح عيديد وحيد نحمر كل سؤال بقول سؤال شد حدي مقدس كل نحمر هرنا كهذا النوع soo dhawaada muuqaalku soo dhawaada dagaalkii dhexmaray General Maxamed Faarax Caydiid iyo ciidamada Mareykanka oo qayb ka ah howlgalkii qaramada midoobay ee UNISOM sanadkii 1993 waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee taariikhda casriga ee Soomaaliya isla markaana bedelay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Dagaalkaas wuxuu bedelay saaxiibayaal siyaasadda arrimaha Mareykanka oo ayuu bedelay arrimaha dibadda Mareykanka ayuu dagaalkaas u bedelay sababta dagaalka marka waxay ahayd dabiiqadii sanadkii 1992 Mareykanka oo qaramada midoobay Mareykanka iyo qaramada midoobay waxay Soomaaliya u soo mareen howlgal bini'aadanimo oo loogu magac daray Restore Hope howlgal bini'aadanimo ay Soomaaliya u soo mareen 1992 oo loogu magac daray Restore Hope soo celintii rajada kaas oo ujeedkiisu ah in gargaar lagu gaarsiiyo dadkii ay abaaruhu iyo dagaalada sukay saameeyeen ayuu ujeedkiisu ahaa si kastaba ha ahaatee sanadkii 1993 howlgalkii wuxuu isku bedelay mid siyaasadeed iyo mid nabad ilaalin military ah UNISOM General Caydiid saaxiibayaal wuxuu u arkay qaramada midoobay inay faragelin ku hayso madaxbannaanida dalka iyo awoodiisa siyaasadeed ayuu u arkay in faragelin ku hayso General Maxamed Faarax Caydiid wuxuu iska caabin kala hor yimid isku dhaca wuxuu cirka isku shareeray bishii June sanadkii 1993 kadib markii 24 askari oo u dhashay dalka Pakistan oo ka tirsan qaramada midoobay lagu dilay Muqdisho 24 Pakistan ah ayaa lagu dilay Muqdisho qaramada midoobay ay ka tirsanayeen taas oo keentay in qaramada midoobay ay marka ay amar ku bixiso in Caydiid la soo qabto ay amar ku bixisay qaramada midoobay Mareykanka ayaa Muqdisho u soo diray ciidamada sida gaarka u tababaran ee Task Force Ranch oo isugu jira Army Rangers iyo Delta Force si ay u soo qabtaan Caydiid iyo caawiyaashiisa sarsare maalintii dagaalku wuxuu ahaa October 3 iyo 4 1993 ciidamada Mareykanka ayaa howlgal ka fuliyay agagaarka suuqa Bakaaraha ee Hotel Olympic si ay u qabtaan laba ka mid ah garyaqaanadii Caydiid howlgalku marka qorshaha wuxuu ahaa inuu saacad gudaheed ku dhamaado ayuu howlgalka qorshihiisu ahaa saaxiibayaal laakiin wuxuu isku bedelay saaxiibayaal dagaalka inuu socdo 15 saacadood ayuu howlgalku isku bedelo ugu dheeraaday soo ridistii diyaaradaha Black Hawk Down soo ridistii garabka hubeysan ee Caydiid SNA iyo dadweyne careysan oo reer Muqdisho ayaa adeegsaday qoryaha baasuuga RPG-ga si ay u soo ridaan laba ka mid ah diyaaradaha helicopterka ee Mareykanka ee loo yaqaan Black Hawk tan waxay u qabsatay ciidankii Mareykanka inay u dagaalamaan sidii ay u badbaadin lahaayeen haraagii diyaaradaha iyo askartii noole wixii waa isbedelay askartii Mareykanka waxay go'aansadeen si u badbaadin lahaayeen naftooda si u badbaadin lahaayeen bay go'aansadeen in wax sameeyaan howlgal ku guuleystaanba waxa kala weynaatay naftooda in badbaadsadaan oo fagta dhaxaan خسارة دجالك وعالمي أهان لو يقان دجالك سي عالمي وح لو يقان Battle of مقدشو دجالك مقدشو وحوا كي وخسارها بدنا عدم مريكان كوكو قفصدا أفريقيا iyo dagaalkii Vietnam ayuu ahaa Mareykanka waxa looga dilay 18 askar ayaa Mareykanka looga dilay halka mid kale uu hadhow u dhintay dhaawac waxaana ka dhaawacmay dhowr iyo 70 kale ayaa ka dhaawacmay Mareykanka sidoo kale hal askari oo duuliye ahna Michael Dura ayaa la qafaashay inkastoo markii dambe la sii daayay Soomaalida marka khasaaraha dhanka Soomaalida aad ayuu u saray waxaana lagu qiyaasaa in Soomaalida ku dhimatay inta u dhaxaysa 500 ilaa 1000 qof ayaa ku dhimatay dagaalka Soomaali ah ee isugu jiray maleeshiyo hubeysan ee isugu jireen dad shacab oo dhexda u galay rasaastii iyo duqeymihii helicopterada bay dhexda u galeen dadka shacabka ah natiijada iyo saameyntii taariikhiga ahayd dagaalkan wuxuu guul weyn u ahaa General Caydiid maadaama uu muujiyay in aan si fudud awood military ah loogu muqonin karin dhanka Mareykanka sawiradii askartoodii dhimatay ee lagu jiiday wadooyinka Muqdisho waxay argagax ku rideen shacabkii iyo dawladda Mareykanka ay argagax ku rideen oo laamiga lagu jiiday markay arkeenba argagax ay ku rideen shacabkii iyo dawladda Mareykanka argagax ay qaaday
bixitaankii Mareykanka madaxweynihii Mareykanka ee xilligaas Bill Clinton ayaa amar ku bixiyay in dhammaan ciidamada Mareykanka laga soo saaro Soomaaliya ka hor bishii Maaj 1994 sidoo kale qaramada midoobay ayaa gabi ahaanba isaga baxay dalka sanadkii 1995 iyadoo aan guul ka gaarin hawlgalkii 1995 ay qaramada midoobay isaga baxeenba Muqdisho waxay dhaheenba iyagoo macna hawlgalkii aan guul ka gaarin bay baxeen oo tageen kumana guuleysan oo markay arkeen waxyaabo badan arkeen argagax ku dhacay cabsi ku dhacday ay dalka isaga baxeenba بدلك السياسات دعدة مركو واحد بدشة أما دعدة واحد ملاكن كده ميد آد وعبصده إنه معنا ميد وعبصده إنه عندما دول كهودرو خلافات كتاعين أفريقيا عالم كأنتي سكريبا ملاكن كيبا أسوأ حقود على إنه عندما أفريقيا وهذي وحكتها إنه أدرو وكعبصده تاع الصومالي كل على الدرتس أيوه حد وعبصده صار أهان واحد قيب كاهل سببت ملاكن كود حقل ويا حسوق رواندا دعي يكون سالبه مراكب مركب محمود حكي واي حسوقي دعاي رواندا كون 1994 محمود حكي واي لانه سومالي عبسلك انت وبقدين اي سومالي كنت ايوها وابقي marka saaxiibaya dagaalkan wuxuu noqday mid aad u caan ah waxaana markii dambe laga qoray buugaag lagana sameeyay filimkii caanka ahaa ee Black Hawk Down ee 2010 filimkii laga sameeyay saaxiibaya dagaalka intaas ku soo gabagabeynayna muuqaalka waxyaabo badan oo qabsaday janaacadii Mareykanka ayaa baartu ka soo sameyn doona inta hadda baartuwan weeye hadii aad ka heshaan in baartuuna ku soo dooran saaxiibayaal select muuqaalka meel fog mi gaarsiin like saara subscribe tan saaxiibayaal lagu dhiirigeliya share na dhaha oo saaxiibadina la wadaaga commentigan ku soo qor fikirkaaga ka soo dhigo janaacadii Mareykanka aad wax badan baa ka qabsaday wax badan bay qabsaday oo Mareykanka qabsaday Mareykanku Afrika inuu ciidamadiisa u diraam ciidamadiisa farageliyo hadii wax dhacaan inuu ka boqo tii sababta waxay ciidid buu ahaa Allah u naxariistay marka muuqaalkaas ku soo gabagabeynaa hadii marka channelka aad ka heshay muuqaalkan ka muuqo وانا ما حسنت انت عشان كنت قبلني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي نولادا